25 Janaayo ee sanadkan bilowga ah waxaa magaalada Balad Xaawo ka dhacay dagaal khasaare ba'an geystay oo ay ku qurbaxeen shacab aad u nugul. Waxaa meel qura ku wada naf waayay qoys ka koobnaa 20 ruux oo ay ka badbaadeen 6 qof, 3 ka midana loo qaaday dhaawac magaalada Muqdisho. Sidoo kalena waxaa jiray qoysas kale oo ay haleeshay madaafiicdii ay isweydaarsanayeen ciidankii oo hogaaminayay wasiir Janan iyo kuwa dowladda federaalka ah. Waxayse maalin madow u ahayd qaraabada iyo ehelkii ay ka baxeen ummadaas aan waxba galabsan ee lagu laayay sida wax magaratada ah iyagoo la tacaalayay duruufahooda gaarka ah. Dareenka dadka ku dhaqan nawaaxigaas ayaana ahaa mid aad u sareeyo oo ay ka muuqato naxdin aad u weyn. والله ما هرسن كر منه وين كر عنيق منه هرس وانا قلبي وانا شوق واي قرقي أنت جناني أنا كجوران مرة هي مانتا فالحمد يسمع دام وضدك درس كإلها وأهل كأنا هين أي تمادين أو أن ولا أدينا إنه ولا حنين أم بيها ولا عبين ولا ولا حنين أو نسلك شوق نون أهل كأهين ما دام إلى مادين ما أنتم ركتي مثل كوبي كرماهن الله قلنا حريص إن الله إنا لله وإنا إليه راجعون. dagaalkan ka socda magaalada Balad Xaawo iyo guud ahaan gobolka Gedo ayaanan ahayn mid ay dani ugu jirto shacabka ku nool deegaankaasi. Beeni raad ma lehe waxaan la dafiri karin xaqiiqada ka socota gobolkaasi oo ay aqoon-yahanada, siyaasiyiinta iyo khubarada ka faalloota siyaasadda Soomaaliya caddeeyeen inaysan ahayn dagaalkaasi mid ka turjumaya danta dalka iyo dadkiisa midnaba. Wuxuuna salka ku hayaa sida ay sheegeen dana gaara oo isdiidan kana dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Islaamka Jubbaland oo doonaya mid walba inuu ku gacan sareeyo maamulka deegaankaasi inuu midkoodba soo saaro xildhibaano ku matala baarlamaanka soo socda si uu uga gacan sareeyo doorashada. Waxaana hubaala inaan la eegin shacabka aan waxba galabsan ee dhiigoodu ku daadanayo colaadda halkaa ka socota. Farmaajahan waqtigiisu sii dhamaanaya ayaa bulshada u tusa inay yihiin kuwa burburinaya dalka, lidna ku aadanaha qaranka, mucaaradka iyo shakhsiyaad ka dhaliila siyaasaddiisa, halka uu saaxiibadiisa ka dhigo inay yihiin wadaniyiinta keliya ee difaaca dalka. Waxaana si joogto ah loogu dhibaateeyaa dalka gudihiisa shakhsiyaadka ay u muuqato inuu madaxweynaha ku guuldaraystay qabashada doorasho cadaalad ah oo ay ku qanacsan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada. Sidoo kale waxaa muuqata in xaalad colaadeed oo ay muddooyinkii dambe ka soo gudbeen bulshada ay ka dhex taagan tahay gudaha Soomaaliya, iyadoo ay bulshada caalamkuna walaac badan ka muujinayso. Haatanna madaxweynaha markiisii labaad awoodda ku maquuniyay doorashada Jubbaland ayaa u arkay inuu yahay shakhsi u soo halgamay jagadan oo ay tahay in isaga uun lagu sooriyeeyo. Axmed ayaa awood u adeegsaday labadii doorasho dambe ee uu ku soo baxay isagoo magansaday dowladda Kenya oo iyadu doonaysa in ay wiiqdo awoodda Soomaaliyada soo kobcaysa kana farmaroojiso badda uu dhex yaalo kheyraadka badan ee muranka kala dhaxeeya Soomaaliya. Kenya ayaa tababaro iyo saldhigyo uga samaysay maamulka Jubbaland gudaha Mandera ugana dhigtay meel ay ku hub aruursadaan ciidanka uu hogaaminayo wasiir Janan, waxayna diyaarado aan ogolaasho ka haysan dowladda Soomaaliya ka dejisay deegaanada uu ka taliyo Axmed Madoobe. Mar sii horeysayna waxay duqeyn cirka ah ku burburisay taawaro ay leedahay Hormuud ayadoo kulaysay dad iyo duunyaba agagaarka xadka aynu wadaagno dalka Kenya. Kenya ayaanay tahay damaceeda ugu weyn inay wiiqdo awooddan soo koraysa ee Soomaaliya, halka labadan hogaamiye ay yihiin kuwa isku haya awoodda doorashada soo socota. Warbixin ay soo saartay IGAD 27 bishan ayaana lagu sheegay in Kenya aysan ku xadgudbin arrimaha gudaha ee Soomaaliya, iyadoo ay maragma doonto tahay ficilada ka baxsan siyaasadda caalamka ee ay ka hayso gudaha Soomaaliya. Isku soo wada duubo labadan hogaamiye ayaanan u muuqan kuwa isu tanaasulaya ama u dhimrinaya shacabka dhiigoodu uu ku daadanayo wax lagu dhamayn karo isfahan siyaasadeed iyo wada hadal, halka cadawga qaranka Soomaaliyana uu ka faa'iideysanayo qulqulatooyinka siyaasiyiinta aan u dhimrinaynin danta dalka iyo dadka midnaba, halka ay wax kasta ka hormarinayaan
danta khaaska ah ee cimri kororsiga kursigooda.